السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Juba Institute of Professionals. وكورسنا Intermediate English course وأنا بوجن فتوصل session English وادس book 1 lesson 23 ويه page 74 أيوة نكمل وانا يا عشان كان أرجع يحوي alone كليئة ويه واحد كليئة alone كليئة adjective ويمك وصفه. If someone is alone قف دو كليئة they are not with another person قف كلا لوجهه. The boy wanted wiilka wuxuu rabay to be alone inuu keligii noqdo to think suu u fikiro. The boy wanted wiilka wuxuu rabay to be alone inuu keligii noqdo to think suu u fikiro. Erey kale waxa weeyaan apartment waxaa la ma flatna waa la apartment waa Mareykanka flatna Ingiriiska waxaa la guri dabaqa qayb kamid ah yaa waxaa la apartment guri dabaqa qayb isku xiran kamid ah yaa waxaa la qolal guri dabaqa ku yaalo isku xiran waxa la apartment Mareykanka iyo apartment badan dhaho Ingiriiskuna waxay dhahaan flat ayay dhahaan. An apartment is a set of rooms waa koox qolal ah in a building oo dhismo ku yaalo where people live halkaas dadku ku nool yihiin. She has a nice apartment qolal qurux badan bay ku leedahay oo ku yaala dabaq in the city caasimada. Marka apartment macnaheedu waa saas. Erey kale barayna waa article waxaa lahaa waa xawayaan article waa laba macno u yeeshaa qodob sharciga kamid ah u noqdaa article hebel qodob sharciga kamid ah u noqdaa wuxuu kala noqdaa sheeko yar oo qoran waxay noqotaa sheeko ku qoran wargeys. An article is a story waa sheeko in a newspaper oo ku yaala wargeys or magazine ama magazine ku yaala. Did you read Marcus the article sheekada ama qoraalka in the newspaper ku yaala about ku saabsan soccer game ciyaaraha kubadda cagta soccer footballka ayaa lahjada Mareykanka waxa lagu dhahaa soccer waa football ciyaaraha kubadda cagta. Erey kale barayna waxa artist waxaa la farshaxaniste waa dadka badanaa wax sawiro ama wax sawiraan laha. An artist is a person waa qofka who paints sawiro paint waxaa lahaa markii aad sawir gacmeedka who paints sawir gacmeedka ku sawiro draw sawiro or make sculptures ama wax qoro. Sculptures horaan soo aragnay sculptures waa markii geed iyo dhagax iyo wax laga qoro oo qof loo ekeysay xayawaan. He went to Paris wuxuu aaday Paris to become soo noqdo an artist farshaxaniste to become an artist soo noqdo farshaxaniste. Attitude waxaa lahaa waa habka aad wax u aragto ama aad u fikirto. Attitude waxaa lahaa waa habka ama sida aad u fikirto ama aad wax u aragto. Someone's attitude the way they feel and think. Someone's attitude ruuxa mataqaana attitude-kiisu is the way waa habka they feel ay wax u dareemaan and think ay u fikiraan. Qabka qofku wax u arko waxaa la attitude. John has a bad attitude. John aad ayuu u xun yahay dareenkiisa ama sida uu wax u arko. He is always angry markasta waa xanaaqsan. Marka attitude waa dareenka qofka waa dareenka ama sida wax u arko. The way they feel and think waa sida wax u dareemaan ama wax u arkaan. Erey kale waxa weeyaan compare waa isbarbar dhigid marka laba shay isbarbar dhigto. To compare means to say how things are same and different. To compare means to say when I say how two things sida laba shay ay same ay iska mid yihiin and different ay ku kala duwan yihiin. Waxa laba shay ay iska mid yihiin ama ay ku kala duwan yihiin waa isbarbar dhigid marka. If you compare cats and dogs hadda isbarbar dhigto bisadaha iyo eeyada you will see waxa ka saday they are both good pets. Waxa ka labaduba inay yihiin good pets fiican. Pets waxa la xayawaanada la korsado ee la xanaaneeyo ee badanaa wax nacfi gaar ah lagu qabin waxa la pets. Erey kale waxa weyn charge hadda waa verb noun kadana waa sida charge markay tahay ficil waa xukmin. Charge waxa la xukmin waxa dhan xukmiso oo dad wax waa fiican ama xun oo kale charge. Sidoo kale qaadigana charge baa la dhahaa. Qaadigana maxaa la charge markuu verb yahay. To charge something shay inaad xukmiso is to say waa inaad sheegto if it's good or bad inuu xun yahay iyo fiican yahay. Marka charge verb uu noqdo noun uu noqdo markuu noun yahay waa qaadiga ama qofka maxkamadda fadhiya waxa la charge. Laakiin marka uu verb yahayna waa ficil oo waa xukmin. The boy was going to church. The boy was going to church. Wuxuu xukmin rabaa how his mother's turkey tasted.
qaabka ay u dhadhamayso hooyadii hiribka shimbirta ay karisay turkey badana waxaa lahaa waa nooc shimbiraha kamid tested say u dhadhamayso magazine waa journaal ma waxaa lahaa magazine badana journaaladan waxa lagu qoro oo ama bishii ama 2 bilood ama asbuuc la soo saaro a magazine is a regular publication waa daabacaad wax si joogta loo daabaco regular si nidaamsan loo daabaco joogta with news badana wuxuu wataa warar stories sheekooyin and articles iyo qodobo kale qodobo xiiso leh ama article sheekooyin kale she likes to read fashion magazines she likes waxay jeceshahay to read inay akhriso fashion magazinada ka hadla fashion waxyaabaha casriga markaa soo baxay ereyga waxa material waa shay wax laga sameeyo a material is what's used to make something waa waxa loo isticmaalo in wax kale laga sameeyo brick buluketiga is a good material waa shay fiican for building house oo guryaha lagu dhisto marka material waa shay ereyga kale marayna waxa meal waa cunto waqtiga cuntada la cuno meal waa waqtiga cuntada la cuno a meal is time waa waqtiga when food is eaten like breakfast sida quraacda lunch qadada oo dinner cashada breakfast is my favorite meal breakfastiga waa xilliga cuntada aan ugu jeclahay because I enjoy breakfast foods waan ku raaxaystaa quraacda breakfast foods quraacda waan ku raaxaystaa aad iyo aad baad u mahadsantiin ashkarkaas oo noogu ogyahay fadlan buugga la